بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تاوني فيديو جن ما انتو حربين ان شاء الله ينيجا فايديو رودي ده عدد ان دنعيدا كجوجوي ونكون دب جرينيو سليد أوليفن أويلا ان شاء الله بعدنا انكو قريدانا فورميجا سيم حنكون مفينسكا اما كب كيك اللي وسمايو ان شاء الله تعالى وحن كدو بدونا اوفينكا مدير او انت كشاحديسو markaan saliida ku xariqo ama aan ku buuxiyo ama aan dhaxgaliyo saliida cabto ayaan insha Allah waxaan sameeynayaa saasan ugu guraya halkaas aan ku guri doona ka bacdina ofingan ku dubaya ka bacdi waxaan ka soo saaro waxaan ku buuxinayaa inta dalooshay godka halka dalooshay godka ah waxaan ku buuxin doonaa duqadaasi oo insha Allah ku dari doono barbaroonigaasi akhtarka ah barbarooniga cas bocor iyo maxaan ku dhahay kamsar iyo basal baar insha Allah iyo xooga xawaasha ka bacdina dush waxaan kaga dari doonaa oregano ama sactar iyo cheese insha Allah cheese xoqan ama ridqan biidni rahman waxaan kaloo maanta sameeynayaa insha Allah barley waxaan ka sameeynayaa heedaasi af Soomaali heed lagu dhaado waxaan ka sameey doonaa hariisad ama shurbad runtii aad iyo aad ugu fiican dheefshiida aan wax cilad lahayn labdilaac lahayn fiberkeedu aad u fara badan yahay ما شاء الله تبارك الله كفائديس وعن بإذن الرحمن ما شاء الله تبارك الله روردي دينعيد ودم aan ka googooyay intii aan ka gooyayna waatan waxaan ku sameeynayaa inta maddaadinayo waxaan ku dubayaa insha Allah lewska almondka la yiraahdo iyo malab iyo olive oil ayaan ku dubayaa insha Allah ka bacdina waxaan ku darayaa vanilla ice dushka ka daraya waxay noqonaysaa ma sha Allah تبارك الله macaan aad iyo aad macaan oo sonkor lahayn vanilla ice kun waa without sugar ma sha Allah homemade ama guriga ku sameeysanay oo bila sonkor malaban ku darnay ma sha Allah waxay noqonaysaa wax crispy oo aad iyo aad macaan oo la cuni karo as snacks ama macaan oo kale loo cuni karo insha Allah ka faa'iideysi wadan fiicaniyadana waan neetus doona insha Allah imika waxaan sameeynayaa watan saliidi halkan igu jirta ma sha Allah waan ku dib gareynayaa roodhida intan ku soo ugu dib gareeyo olive oil dibaato kuma jirto sometimes sano kale waa loo cuni karaa ka bacdi waxaan gashanayaa ilaahay duna roon yahay bahalkeeni formigaas ayaan gelinayaa waxa muhiim ah in dhaxdeena ka godato waxa kale muhiim ah saasan ugu guraya insha Allah xoogaa ban yara dubayaa ka bacdi xoogaa markaan yara dubo ayaan insha Allah taala wixii kale ku dhex guraya insha Allah ما شاء الله تبارك الله وتر ودي olive oil baan ku daray ku qooyay ka bacdi waxaan gelinayaa ovenka ka bacdi waan isku yara dubayaa inta ka shaaxidaysa insha Allah ilaa 10 minute waa ku filan 170 degree u gee olive oil taa la yaaban tahay caadiyan runtii olive oil dabka lama geliyo oo waxay dabka lama geliyo sababta ah waxa la yiri marka dadka la galiyo waxay keentaa cilada laakiin marka qaarkood waa iska okay dhibaato kuma jirto at the same time hada la yaaban tahay waxaan isticmaalayaa isleedahay waxaan meeyada cunto la cuni karo ma xas saliida runtii way ka baxaysaa cuntada kale qaraxa ku dubay khudradda aan qaraxa ku qaleynaya ayaa qaadanaysa saliida at the same time waxaan ku raadaay saliida olive oil waa good cholesterol ka jirka u baahan yahay waa omega fat ka weeyaan aad bay jirkaagu meel walba ugu baahan yahay wax dhibaato ku jirto ma jirto maalin kastana dasan looma cunayo waa sometimes kaliyata insha Allah wakaas markan dhameystirana la soco insha Allah ma sha Allah wata khudradii aan u sameeyay duqadii aan ku buuxin lahaa roodhidii aan markii dhawdaan duubay watan roodhidii waan ka soo saaray ovenka waxyaabaha cajiibka rabo inaan soo xakamida saliidii xagga hoose ku jirtaa gunta gashay laakiin hadhow tolo markan ka soo saaro ovenka si fiican u dhamaato waxay ku hadhaysaa bartaas darkiisid bay ku hadhaysaa saliid oo dhani roodhida qalalan iyo khudradda qalalan ba ku soo hadhaysaa ma sha Allah tabarakallah hada waynu buuxinaynaa khudradina ku buuxinaynaa waxaan ku daraynaa cheese aan xoqay baan ku darayaa dusha sare waxaan ku darayaa insha Allah black olive on qurradda ka soo shubtay waxaan kaloo insha Allah ku dari doonaa oregano ama sactar taqaanin dusha sare marka insha Allah la socod wanaagsan waxaan insha Allah ku buuxinayaa duqadda mid walba inta ay ka deeqi kartaa ka badinin انت كده قي كرتون ان شاء الله
dhinacyada wixii kaga daato macaleesh waan ka guraynaa insha Allah waxaan 12 xabo way inta laakiin ka badinayaa reer badan baa cunaya waxaan sameeyay dhowr midho kale insha Allah 4 xabaan sameeyay totally marka qofkii baa intuu doono uga dhargi karo insha Allah بعد waxaynu ku dareynaa cheese tan dusha kaga dareynaa iyo oliventa iyo sactarka waan ku dhameeyay oliventi ma sha Allah sadarkaysiin baa kan ku wada buuxbuuxiyay imika waxaan ku darayaa insha Allah cheese-ta in yar isku dhalaalisa oo ku darayaa insha Allah kuma badinayo ما شاء الله نوتا تشيستين انصاري imku waxaan ku darayaa oreganada insha Allah باذن الله kadibna oven kan gelinaya in yar ما شاء الله نوتا ساعتركين aan ku daray sababtan saactarka ugu daray xawayaan idgoon buu ka dhigayaa dhadhan idgoon buu sameeynaya at the same time na saactarku waa waxyaabaha caloosha u fiican gaaska caloosha ما شاء الله si xawaash ahaan si shaah ahaan si walba in loo cabo u wanaagsan idgoon uu ka dhigayaa marka de appetite wanaagsan imika waxaan gelinayaa only 5 minutes ovenka oo kululaaday on hore waqtiisanin ما شاء الله kabacdina waxaan u sameynayaa sour cream ama caano fadhiya ayaan u sameynayaa insha Allah wana tusi doonaa bin rahmaan qofkii doonay waxa wuxuu doono ku cuni doona ama siisa u cuni karaa ama salad buu ku cuni karaa ama sour cream kaas ku cuni karaa si alla sadonta u cuni kartaa ma sha Allah runtii way dhaantaa sambuuska wayna ka fiican tahay marka de appetite wanaagsan insha Allah barasho wanaagsan way kaas maanta wax cusub barateen ba laga yaabaa hadaad hore u taqaanina Allah idin barakeeyo وتا ما شاء الله روددي دhameystiran in la cuno bahadhay laakiin afurki wax badan ba ka hadhay insha Allah khayr badan masku ognahay salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jazaakumullahu khayran Allah idin bis siha wal aafiya insha Allah ku cunaa